if you want to solve the problem, then you have to take in the whole truth. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa duray gobadfalada ay ciidamada Israel ka geysanayaan marinka Gaza. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sheegay in weerarkii Xamaas ay 7 Oktoobar ka geysatay dhulka la haysto uu ahaa mid laga naxo oo aan wax qiil ah lahayn, isagoo dhanka kala sheegay inaan loo adkeysan karin in Israel xoog ku sii haysato dhulka Falastiin iyo dhibaatada ay u geysanayso shacabka Falastiiniyiinta. Waxa Xamaas ay sameysay waxa ay ahayd wax laga naxo oo aan qiil loo heli karin. Waxa kale oo runay in qabsashadii iyo waxa ku dhacaya Falastiiniyiinta ay yihiin waxaan loo adkeysan karin, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay in ay jiraan dad badan oo aan shaqo ku lahayn weerarkii Xamaas haddana ku dhimanaya duulaanka Israel ee marinka Gaza. Waxaa runay in ay jiraan dad hadda dhimanaya oo aan shaqo ku lahayn waxa ay Xamaas sameysay, ayuu yiri Barack Obama. Waxa kale oo uu sheegay in dunida ay muddo dheer ku guuldareysatay xal u helidda colaadda soo noqnoqotay ee Israel iyo Falastiiniyiinta. Marka aad eegto sida labada dhinac ay ugu kala fog yihiin arrinta taagana, waxaa jirta taariikh dadka Yuhuudda oo laga yaabo in shaqada laga ceerinayay awoowayaasha ilaa awoowayaashoodii kale ama adeerka ama eedada ay ku sheegaan sheekooyinka ku saabsan waalid nacaybka Yuhuudda, ayuu yiri Barack Obama. Obama ayaa sheegay inay arrintan xal u noqon karin weerarka halka dhinac ee baraha bulshada la isla dhex marayo, isagoona dadka uga digay inay ku kadsoomin weerarkaasi. Waxa uu ku baaqay in si qoto dheer loo fahmo colaadda labada dhinac, isagoo yiri qofna gacmihiisa nadiif ma ahan. Obama ayaa yiri waxaad iska dhigi kartaa inaad run ku hadasho, waxaad ku hadli kartaa hal dhinac oo runta. Xaaladaha qaarkood waxaad isku dayi kartaa inaad ilaaliso akhlaaqdaada, laakiin taasi ma xalin doonto dhibaatada taagan. Obama ayaa sheegay in dhinacyada kala safan Falastiiniyiinta Israa'iil ay tahay inay qiraan xiisadooda inay tahay mid xasaasiya, isagoo ku baaqay cabashooyinka saxda ah ee dhinacyada. Waa inaad qirtaa in dhammaantiin aan ku dhibtoonayno arrintan ilaa xad. Sidaas darteed, haddii aad rabto inaad xaliso dhibaatada, waa inaad qaadataa runta oo dhan, ayuu yiri Obama. Obama ayaa intaa ku daray haddii ay jirto wax fursad ah si aan si wax ku ool ah wax uga qabanno, waxay u baahnaan doontaa ogolaanshaha dhinacyada iyo ilaalinta waxa dusha sare ee laga yaabo inay u muuqdaan fikrado iska soo horjeeda. Hadalkiisa ayaa imanaya xilli dhowaan uu Israel uga digay howlgalkeeda dhinaca dhulka ee Gaza, taasoo kaga sii dari karta sida uu yiri colaadda gobolka. Obama ayaa xilligii uu tartamayay xafiiska waxa uu ku ololeynayay inuu xalin doono colaadda labada dhinac, balse aanu ku guuleysana. And you then have to admit nobody's hands are clean.